marka hore waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka waxaan aniga iyo walaalkay Mustafa iyo walaalkay Ismaaciil oo gudoomiye hore jaaliyadda Soomaaliland gabdhuhu yiraahdeen mahadnaqa barnaamijkaas oo dhan iyo ka soo qaybgalkiisa qaata nimankan waxay yiraahdeen hadal bay guulaadeen waxaan doonayaa marka hore inaan u mahadnaqo dhalinyarada abaarso ka soo baxday ee gobolka nala joogta oo qayb ka ah barnaamijkan waxaan u mahadnaqayaa gabdhaha soo abaabulay ee hawshan ka shaqeynayay 8 toddobaad waa 2 bilood baad malaha ay ugu horeeyaan Xamiida iyo Sabaax iyo Shiriin iyo Xidigo iyo kuwa kale fara badan annagu waxba lama qabanin way noo yeedheen way lagu soo marti qaadeen waxaan doonayaa inaan u amaano gabdhaha reer Sheekh Isxaaq waa gabdhaha geesiyaasha dhalaway haddaan israada caawatiri geesiyaasha reer Sheekh Isxaaq ee calanka u soo dhintay ee sharaftaada u soo dhintay tiri ka gayool maayo waa gabdhaha lixla dhalay ee koodbuur dhalay ee aadan shiina dhalay ee maxamed kaahin dhalay ee duqsi dhalay ee kuma dhalay waa garanaysaa dhamaantood ee axmed siilaaye dhalay ee mujaahidka madaxweynaha maanta dhalay waa gabdhaha weeyaan gabdhahaas ay ka mid tahay aniga eelanteeda hibo waxaan leeyahay sharaf baa mudantii inta nolol jirtana sharaf ku noolaada inaga reer Sheekh Isxaaq hadaynu nahay Soomaalida ma nacbin mana nihiin dad caloosha wax ku qabta Soomaalidu waxay nagu tiraahdaa markay dacaydeynayaan reewqay wax ma qarsadaan inaga inoo jeedaan hadduu ku dilay bay koranaya casarka subaxuu ku sii sheegaya waa ku dilay buu koranaya taas waa isku kalsoonaanta weey waa qofnimada weey waa dadnimada weey waa qabkay leenahay aan ilaahay mooyee cid kale qoorta ku soo laalaadi weeyaan waxa weeyaan halkan aan joogno iyo gobolkan aan ku noolay Minnesota iyo dalka Mareykanka iyo meel kasta oo qurba aan ku joogno anigu ma garanayo waxyaalaha specification kan leenahay cid leh way leeyahay kartaan anigu gobolka ku garan maayo qof reer Sheekh Isxaaq oo waxa musuq maasuq iyo balaayo Soomaalidu sameynayso loo haysto miyuu jiraa anu ma arag anu garan maayo qof reer Sheekh Isxaaq oo maadar noqday oo dad dilay miyuu jiraa barta miyuu jiraa waxaynu nahay dad yani ka fikiraya ilmaha dhasho inuu ku koro dhaqankiisa iyo diintiisa inuu noqdo qof bulshadiisa wax taraya inuu noqdo qof baritoole ku bedelaya noocaas aynu ka fikirnaa taasi waxay calaamad u tahay oo hadal aan iska leeyahay ma aha Soomaaliland bay ka muuqataa waxay ka muuqataa Ceerigaabo iyo Burco iyo Berbera iyo Hargeysa soo maaha dadka Soomaaliyeed waxaynu jecelnahay wax kasta haysano inay nala wadaagaan hadday tahay dalkeena quruxda badan iyo hadday tahay Minnesota hadaynu ku noolnay wax wanaagsan ku haysano inay nala wadaagaan baan jecelnahay iyaga waxaan u sheegayaa Soomaalida waa reer Sheekh Isxaaq Soomaalida ma necba reer Sheekh Isxaaq waxa ka dhashay Maxamuud Axmed Cali oo Soomaali aabaha waxbarashada waxa ka dhashay ninkii ololihii afka Soomaaliga lagu qoray 74kii Soomaali af Soomaaliga sida uu qorto baray Professor Gahayb saamo taqaaniin waa reer Sheekh Isxaaq waxa ka dhashay ragii akademiyadii dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed asaaskeeda dhigay Yuusuf Xaajaadan cilmi qabile waxaad aragteen iyo suugaan iyo af Soomaali iyo heeso reer Sheekh Isxaaq baa Soomaali ama ku amaanay ama ku difaacay ama soo calankiisa iyo ciidiisa cirkiisa dhulkiisa ku amaanay Soomaalida halkaas ay ka taagan inagu laakiin waxaad moodaa Soomaalidu sidoo Sheekh Cabdiraxmaan sheegay
waxyaalaha aynu leenahay gaarka ah specification-ka inay la celiyin oo ay ka xun yihiin oo ay dabeetana jeclaanayaan inay noqono dad hooseeya oo maaragtay baaleysmaya waxaan leeyahay anigu shirkeenan caawa ujeedadiisu hablii baa sheegay annagoo saddexdeedan nina waan adkaynaynaa waxaan ku adkaynaynaa laba arrimood markii koowaad ee reer Sheekh Isxaaq isugu yimaado Minnesota wey ee shirkan oo kala qabsado marka haddaynu caawa isugu nimid ma waxaynu doonaynaa habeen quraanteenu sumaadno dib inaynu arki waayo ma dhacayso shirkan wuxuu noqonayaa sanad leh sanad kasta waxaynu qabsanaynaa March 12 bilood ma habeen baynu sii iman kari waynaa meelad 18 May waa maalinta Somaliland March kowdeedu waa maalinta reer Sheekh Isxaaq Minnesota waxaan rabaa waxa weeyaan inaynu fariintan u dirno meel kasta reer Sheekh Isxaaq ku nool London Oslo Toronto wherever ay ku nool reer Sheekh Isxaaq waa inay isku yimaadaan oo isku duubnaadaan oo gacmo isqabsadaan Somaliland waxa xoreeyay reer Sheekh Isxaaq Ingiriiska waxa ka kiciyay reer Sheekh Isxaaq Siyaad Barre waxa ka kiciyay reer Sheekh Isxaaq iyaga maanta la aqoonsiga keenaya ama Itoobiya badan ka kireeyaan ama waxay doonaan ka kireeyaan mas'uuliyadda aqoonsiga Somaliland waxay saaran tahay reer Sheekh Isxaaq anu garan maayo cid aan ilaahdo Somaliland way maqantay inaga u maqan haddaad istirahdaan waxa tay garxajis waxa tay awal waxa tay habar jeclo waxa tay arab waxa tay ayub waxaas wax maaha shalay toole markii nin siyaar lagu baqtiinayo ninka kale u dagaalamay waxaas ma jirin wayna noqonnaa 18 halkeen taagnay ilaa inuu arkayna Somaliland la aqoonsaday oo calankeedu qaramada madad ka taagan yahay oo dunidu ixtiraamto oo dariskeedu ixtiraamo gabdhaha waxaan leeyahay reer Sheekh Isxaaq halkan fadhiya intiina xaasas kale odagaaga waxa ku tiraada ordo shirka reer Sheekh Isxaaq tag you ku soo heenin hadaan u iman shirka reer Sheekh Isxaaq حبيبي الدنبي حاج منها أوراني وإنه من مدة رشح إسحاق شقيا ووقت كشقيا مستقبل كودا هذيك لا شرفت الدفاع تصعد ليه رجي شلي طوله دل كوه الجميع كان عليه أنت ما أنت نور برا رمينا وهالجنتو أو إلاليسو أو مقعين دورتو أنا مركا أركض قال كسمان لجوه هيو وحيل هذا قبل أيرق روح لبلن 21 year old ka ee jaamacada ka baxaya ayuun baa loo socdaa in hablaha laga xumeeyo mustaqbalka ama carruurta laga xumeeyo marka inta halkan joogto waxaan u baahanahay inaynu isku duubnaano shirkaasina uu noqdo sanad leh marka la gaaro Ramadaan hadii la hayray naga baxdo halka waxaynu ka dhisi doonaa guddiga sabax sheegayso hawsha waxaynu samaysan doonaa bacda Ramadaan taa inaynu guddiyadana dhisano oo inteena lagu tayada badan isugu yeedhno oo guddi dhisano ka shaqeysa sanadka dhan waxay noo qabsoomayaan waxa kale oo idin sheegaya Sheekh Cabdiraxmaan xarunta uu sheegayo ee central dhisay way noo muhiim haddaad dhaqaalaha ku darsanayso waxay ku tahay sadaqa jaariya aniguna waxaan ballan qaadaya cid kastoo xiriir la leeyahay haday macal xukuumadeena tahay sidii London lacagta ugu darsatay masaajidka ka dhistay reer Sheekh Isxaaq inay Minnesota ku darsadaan ballan qaadayaan cid kasta oo la xiriiro halka waxaan sameysannaa ururka ganacsatada wixii business la magacaabay waxaan ugu baaqaynaa isku ibaadaan ma ahayn magacyada laga sheego qaar badan bal rabay wajiyada intaan la gareyn aan barto inaan isku nimaadno Isxaaq Business Association kadib aba Somaliland business waxay doonaan ka dhigano inay business isu timaado oo meel isku timaado oo isbarato oo ay samaysato urur si hadhow toole barnaamijyada kale iyo kuwa ka badan ay u fuliyaan waxaan idin sheegayaa ugu dambeyntii waxa maanta la marayaa 2024 2 si kasta haddaad u eegto taariikhda soo baara
meel kasta ka raadiya adduunyada ma jiro ummad inagoo kala ah oo 136 sano xornimo raadinaysa sida awgeed Somaliland maanta hadii la yiraahdo waxa aqoonsanaya in aqal hoostii ku jira waa inaan cuseyno oo u tagno oo sharafno oo Ethiopia ka tahay since 1884 ilaa maanta waa 5 maalmood waxaan calan lahayn marka aqliga ma galayso generation to generation inay noqono dad xorriyadu halgamayo maanta xorriyada maanta ugu dhaw 2024 may waxaynu dabaaldegaynaa insha Allah inagoo اعتراف helay oo qaran noqonay idinkuna waxa idinku baaqayaan midnimada ilaashataan wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh